السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وناشي سعدية حسن جنرال كان قد داون إنسان وأجمل جنرال. أنت هرنا ورجوكتي آدي هذا وما سنتين. أنت هذا مقال كان وهر السنة. بليز جنرال قصب سكها وساركم برالك فرصي مقال البوكوسو كارو. waxaan rabaa inaan muuqaalkan ugu tacsiyeeyo qof walba oo muslim ah khaasatan qof walba oo Soomaaliyeed ama waalidku uu ka hormaray ama walaalihii ay ka hormareen ama waladkiisa uu ka dhintay ama waalidiinta dhalay ka dhinteen horta geeridu waa xaq qof walbana way soo maraysaa oo nabi maxamed iyo martay sallallahu alayhi wasallam hadii geeriyo dad ka xishoonaysa ama insan dad ku dhaceynin nabi maxamed baa badbaadi lahaa salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi allana wuxuu yiri kullu nafsin dha'iqatul maut naf walba geerida way dhadhaminaysaa الله wuxuu kaloo yiri kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wax walba way dhamaanayaan laakiin waxa baaqi noqonaya wajiga rabbul alamin jalla jalaluhu marka waxaan rabaa qof walba oo tacsiyo ku dhacday ama maanta tacsidiisu ay taagan tahay oo waalidka sii dhalay ka dhinteen ama walaalihii ama nooc walba yahay qof walba asxaab la ah u dhow ruux walba ee maanta tacsi u taagan tahay waxaan leeyahay ilaahay sabir iyo iimaan adiga iyo anaga waxa naga wada siiyo qof walba muslim ah oo dhintayna ilaahay ha u naxariisto intii nool ilaahay dambi dhaaf iyo tawfiiqda ha waafajiyo geeridu marka waa shay xaq ah ee qof walba ku dhacaya ee aan qofna ka gambanaynin adiga maanta hadaysan ku haysanin qof kale oo muslim ah oo walaalka ah bay haysataa hadii biri waxa laga yaabaa inay ku timaado bacda ayaam inay ku timaado nafsadani mar ay bixayso Allah u gaao marka waxaana laga rabaa inta aan nool nahay ee aan adduunka jaaniska neefta ah aan haysano inaan uga faa'iideysano intaysan geeridu noo imaanin nabigu wuxuu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ama aimada muslimiinta ama culimada muslimiinta ay ku isku waafaqeen qofka bini aadamka xaaladu raba ku dhinto hadaad ku dhimato hadaad gubato oo jirkaagu u dhamaado haday diyaaradu kula qalibanto oo hawada jirkaagu ku dhamaado ku baabao hadii gurigu kugu soo dumo hadii musiibo kale ay kugu dhacdo hadii inta lagu qaado qabri lagu dhigo marxalad walba qofku ku dhinto inuu xayaatul barzaq uu marayo muhiim ma ahan jismigaaga inuu baaba'ay iyo inuu joogo waxa muhiim ah ruuxda waxa ilaahay uu xisaabinayana waa ruuxda waayo jismigaaga hadii qabriga la dhigabo wuu baabi'i lahaa oo abaar baa cuni lahaa marka qofka waxa laga rabaa inuusan ku fakarinin sida gaalada ay u fakaraan oo uusan islahinin qofkaan jismigiisa uu dhamaad xitaa hadii faranjeer la geliyo oo faranjeerka lagu haayo waligi ilaahay waxa uu la xisaabtamayo ama ciqaab haduu muteestay uu ciqaabay haduu wanaag muteestayna uu wanaag la kulminayo waa ruuxda qofka bini aadamka ah ruuxdiisa ilaahay la xisaabtamaya oo nabigu wuxuu sheegay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi qofka markii ruuxda laga qaado ee ruuxda samada aado ilaahay uu ku soo celiyo markii janaasadiisa ay dhamaato nabigu wuxuu sheegay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi qofka markii qabriga la dhigo ee dadku ay ka kala tagaan carada ay ku shubaan isla markaa in ruuxda lagu soo celinayo uu maqlayo qarcan caalihim ama shanqarta kabahooda inuu maqlayo markay saa uga dhaqaaqaan nabigu wuxuu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi in qofka ay u imaanayaan labada malag markay u yimaadaan kadib way soo fariisinayaan marka way weydiinayaan su'aalihii la badbaadin lahaa adduunkiisa iyo aakhiradiisa iyo xayaatul barzaqa uu ku badbaadi lahaa ama uu ku halaagsami lahaa labada malag markay u yimaadaan ay soo fariisiyaan qofka asagoo fadhiyo ayay la hadlayaan waxayna leeyihiin man rabbu wama diinu wama hada ar-rajul alladhi bu'itha fiikum rabbiga waa kee diintaadu waa tee waana kuma rajulka la idin soo saaray oo diinta idinku yeeraya qofka muslimka ah ama mu'minka ah ama qaatimada wanaagsan ku dhintay wuxuu leeyahay rabbi allah rabbigay waa allah diinteeduna waa islaam rajulkan aad sheegaysaane waa khaatamul anbiyaa waa imaamul mursaliin waa muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi marka uu ilaahay wuxuu amar ugu ku siinayaa malaa'iktii inay tusiyaan qofkani
booska uu jahannamo ka geli lahaa haddii uu ahlu naar noqon lahaa ama ilaahay awaamirtiisa uu khilaafi lahaa. markaaba waxaa la leeyahay tan ilaah baa kaa badbaadiyey, waxaad nasiib u yeelatay inaad min ahliljanna noqoto. booskiisa jannada uu ku leeyahay ayaa meeshaa laga tusinaya. isagoo qabrigiisa fadhiyo ayuu ilaahay wuxuu tusinayaa jannada booska uu ka lahaa. markii jannadii booska uu ka lahaa la tusiyo ayaa waxaa lagu leeyahay ilaahay amar uu ku bixinayaa in qabrigiisa loo waasiciyo madal basar, araggaagu inta uu arki karo. qof walba oo muslim ah hadda adduunka jooga wuxuu qiyaasi karaa hadduu inta meel karo uu fiiriyo adduunyada inta uu arki karo, araggiisa uu muuqan karo. intaabaa loo waasicinayaa. markii loo waasiciyo araggiisa inta uu arki karo oo qabriga ilaahay uu waasac uga dhigo ayaa waxaa loo furayaa albaab ama daaqad oo jannada ah. meeshaabuu kula noolaanayaa nolol qurux badan, ka fiican, ka qurux badan, ka raaxo badan tuu adduunka kusoo noolaa. ama almunaafiq aw ilkaafir, ama qofka kaafirka ah ama munaafiqa ah, dad badan oo muslimiin ah ayuu ilaahay cadaab ugu goodiyey. ilaahayna uu sheegay inay aakhiro min ahli naar noqonayaan. qof walboo dunuub daa'ima ama macaasida ku dhex noolaada ee aan u fakerinin maanta hadduu dhinto qaatilnimada dhibaatada ay u keeni karto, ee iskaga noolaada sida xoolaha oo kale amaba xoolaha si ka liita, ilaahay wuxuu tilmaamay inuu aakhiro uusan wax wanaaga qofka agtiisa uusan ku lahayn. qofka munaafiqa ah ama gaalka ah markii qabriga la dhigo dadku ka kala dhaqaaqaan, ruuxda lagu soo celiyaa sida qofka kale oo mu'minka ahaa. markaaba waxaa u imaanaya laba malag, markaabay ku soo fariisinayaan, markaabay leeyihiin man rabbuk wamaa diinu wamaa hada arajul alladii bucitha fiikum. waa kuma rabbiga, waa ta diintaada, waa kuma rajulkan la idiin soo saaray ama la idiin soo bixiyey. qofka kaalka ah ama munaafiqa ah ama qaatimo xumada ku dhintay ilaah baan ka magan gelaynaa, wuxuu leeyahay jawaab kale ma bixin karo. xitaa adduunka markuu joogay hadduu su-aalaha jawaabtooda garanayay hadda ma dhihi karo oo afkaa laga qaban, waayo wuxuu ku dhintay qaatimo xun, waayo wuxuu ku dhintay isagoo dunuub ku dhex jira, waayo wuxuu ku dhintay noloshii loogu talagalay qofka mu'minka aan ahayn. markii uu garan waayo malaa'igta ilaahay meeshabay ay ku habaarayaan, markaabay leeyihiin waa kaa booskaaga jahannamo. ilaahay wuxuu amar ku bixinayaa ama uu amar ku siinayaa in feerihiisa la isku keeno, la isdhaafiyo. waa qiyaasi kartaan ciriiriga meesha ka jiro, godkii baa lagu cariirin, markaabuu ilaahay wuxuu amar ku bixinayaa cariirigaas in uu gaaro heer labadiisa feerood ay isdhaafaan, midba midda kale ay dhaafto ciriiri darteed. markaabaa lagu leeyahay ku noolaaw noloshani waa tii adiga adduunka oo kusoo dooratay. waayo qofka mu'minka ah ama muslimka ah ee dunida jooga jaanis ilaahay wuxuu u siiyey inuu ku cibaadaysto, ilaahay ugu dhawaado, ilaahay ku xuso. tii hadduu jaanis u garan waayo uu hawadiisa raaco, abaalmarintaa buu helayaa. abaalmarintiisa markay taa noqoto ilaah baan ka magan galnay waxaa halaagsamay aakhiradiisii iyo nolosha dhexe ee adduunka iyo aakhirada u dhexaysay ee xayaatulbarzaq ama xayaatulqabriga ahi. labadiiba way halaagsameen. jaanis danba ma lahan, nasiib danba ma lahan, ilaahu iga toobad aqbalne ma jirto. marka alla wuxuu kitaabkiisa ku yiri faman zuxzixa cani nnaari waudkhila aljannata faqad faaz. qofkii laga badbaadiyo faman zuxzixa cani nnaar, qofkii naar ka badbaada ee waudkhila aljannata janno la geliye ayaa faqad faaz liibaana. mar haddii ilaahay naar inta kaa badbaadiyo aada janno gasho waad liibaantay. liibaan adduun, mid aakhiro iyo mid xayaatulbarzaq intaba waad heshay. marka qof walbo waxaan ugu soo celcelinayaa geerida, waxaan ugu soo celcelinayaa noloshaan dambe khafladan ugu jirta darteed. maanta waxaan halmaamsannahay nolosha. war noloshaan adduunka waa wax yaree basiid ah. waman xayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur, waa nolol kadis ah, ilbidiqsi aad ku dhiman kartaa. ma ogid waxaad ku dhimanayso. marka uga faa'iidaysa markaad hurdada kasoo kacda ilaa aad midda kala raadinayso inaad ilaahay xusto, ilaahay aada u dhawaato.
waayo ilaahay xusitaankiisa ama ilaahay dhawaashihiisa waxaad ku weysay wallahaadan ku helaynin macaasi wallahaadan ku helaynin inaad diinta islaamka ka fogaato inaa khaaliqi ku abuuray ee indhaha afka sanka dhagaha lixaada kuu yeelay inaad caasiso waxba ku hormari maysid waxba kuu soo kordhin mayso aadanahan hadda kuu qoslaya markay salaadu qofka ay hayso dad baa u sheekeynaya u qoslaya ayaga taarikiin ah dadkaa kuu qoslaya maxaa la yiraahdaa ka isku dayaya inay kaa mashquuliyaan waajibaadka ilaahay ku faray waxba kuuma qaban karaan markay noloshu halkan ku soo istaagto oo qarqaradu ay soo istaagto waxba kuuma qaban karaan bala inta qabriga ku dhigaan bay kaa soo dhaqaajinayaan adiga marka ha fiirinin aadanahan maantay maxaa la yiraahdaa ku mashquulinaya kugu maaweylinaya waa toobad keeni ku doontaa markaad 60 sano gaartay yaa ku yiri 60 sano gaaraysa yaa ku yiri markaad xilliga gaartaa toobad keenaysa yaa ku ballan qaaday isla laxdadaana dhiman kartaa marka baraarug hurdada ka kac aan nafteyda iyo naftiina taaban kula dardaarmaya waanan ku celcelin ilaa ay aniga tayda ka baxdo waayo بلغوا عني ولو آية نبي صلى الله عليه وسلم ضدك إيجاسية ولو آياتنا الله تعالى وحان رشا نقصوا العنينية إن حتى كفاية سنة جالس كان هالسنة أدي على دي سلام والسلام عليكم.